Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalahayga qaaliga badan ee meel walba adduunka aad ka joogtaanba soo dhawaada. Aad iyo aad waana idin salaamaya walaalayaal. Maanta waxaan idin wadaa waxa weeye walaashin ay idin wadaa saddex shay oo aad iyo aad ugu muhiimsan inaad ma aragtay jilba xanuunka iskaga daweysid ama looya xanuunka qof walba siduu u yaqaano lahjadaheena ma aragtay maasha Allah quruxda badan ee Soomaaliga ah. Marka walaalayaal maanta saddexdan shay ee aan rabaa inaan idinla qaybsado ama idinla wadaago wax aad iyo aad u fudud weeye, wax dhib badan maaha. Saddexdaas oo shay oo ka kooban caano, ukun iyo bahalka la yiraahdo baamiye. Marka walaalayaal saddexdan shay laba shay waxa weeye waa laba shay oo ma aragtay aad isla qaadanaysid oo ma aragtay iyagu gaar aad u isticmaalisid iyo baamiyaha oo gaar u isticmaalisid. Marka maalin walba waxaad karsanaysaa laba xabo ukun ah ama hal xabo ukun, qof walba isaga og. Waxa laga yaabaa in ukuntu kugu culays kugu noqoto. Marka haddii ay laba xabo ay kugu culus tahay, hal xabo okay weeye, dhibaato ma jirto. Hal xabo ukun ah iyo hal xabo oo ma aragtay hal galaas oo caano ah ayaad maalin walbaba isla cabaysaa si aad ugu daweysid looya xanuunka iyo lafa xanuunka. Marka ta kale ma aragtay walaalayaal waxay tahay labada shay waa la isku darayaa oo halka labay ku yihiin. Ta kale saddexaad waxay tahay geedka ma aragtay baamiyaha la yiraahdo. Sideedaba inagu baamiyaha waxaynu isticmaalnaa cuntada ayaanu ku darsanaa ama maraq ha noqoto ama khudaartii la isku kariyo iyo waxaas oo dhan waad taqaaniin sida loo sameeyo. Laakiin sidani way ka duwan tahay. Aan rabaa maanta inaan ma aragtay idinla qaybsado. Marka sidan loo sameynaya baamiyuhu waxa weeye baamiyihii baad soo qaadaysaa walaalayaal. Waxaad ka jaraysaa afka kuusan ee adag ee hore iyo dabada dhuuban baad ka jaraysaa. Ka bacdi dhexda ayaad ma aragtay mindida uga kala goynaysaa. Markaad dhexda mindida ka kala goysid waadna iska dhaqaysaa oo of course mar walbaba yacni waa inaan iska dhaqnaa khudaaraha iyo ma aragtay waxyaalaha cagaarka ah, waayo sun iyo waxbaa lagu buufinayaa ama beerta dhiiqadeed iyo waxeedii baa ku yaala iyagoo soo dhaqan. Laakiin ha isku halleen marnaba iska dhaq. Marka aad dilaacisid baamiyihii aad afka iyo ka jartid iyo dabada dhexda waxaad ka dilaacinaysaa yacni mindi baad saas ugu dilaacinaysaa oo ma aragtay hal line aad saa ugu goynaysaa. Marka walaalayaal markaad mindidii ku kala jeexdid baamiyihii of course waxaa kuu soo baxaya midhihii. Marka dhib ma laha, midhaha khasab maaha inaad ka daadisid. Waxaad samaynaysaa markaad kala jeexdid bahalkii ama aad jarjaratid oo kale, laakiin kala jeex unbaa muhiimaddu waxay tahay inay midhuhu ma aragtay saas u kala dilaaco biyuhu dhex galaan. Marka labaad u kala goynaysaa ama waad duuduubaysaa wax dhiba kuma jiro ama ma aragtay warwareeg baad u goynaysaa. Waxaad samaynaysaa baaquli adigu ilaa hal koob oo kale ah ama half koobkiis baad waxaad samaynaysaa qiyaasta marba adigu haddaad rabsid maalintii waad dhiganaysaa fridge ka gashanaysaa. Marka hal koob oo biyo aad ku daraysaa baamiyo adigu inta qiyaastaada adiga qiyaasanaysid qof walbaba intuu ma aragtay rabo inuu u yaalo ama samaysto. Marka waxaad samaynaysaa maalin baad qasan kartaa, maalinta kale aad qasan kartaa, yacni fridge ka gashanaysaa wuu kuu radayaa. Marka maalintii markay aad biyihii iyo baamiyihii isku dhigtid oo aad halkan dhigatid oo baaquli afka ka dabooshid, fridge kaad gashanaysaa ama banaankaad dhigaysaa, wax dhibaato ah ma jirto. Ka bacdi waxaad samaynaysaa fridge-kii baad ka soo saaranaysaa markuu kuu milmo ama banaankii uu ku yaalay. Waxaad samaynaysaa bahalkii oo biyo dhardhareer yacni biyihii oo dhardhareer leh iyo baamiyihii oo milmay ayaad waxaad samaynaysaa intii aad u baahnayd ayaad blenderka ku shubaysaa makiinada lagu shiido ee khudaarta lagu shiito ee cabitaanada loogu talagalay. Intii qiyaastaadii marka aad shiidatid aad soo yacni ka soo qaadatid intii kuu taalay ma aragtay baamiyaha waad badsanaysaa haddaad rabtid. Marka intii aad u baahan tahay markaasaad ka soo qaadanaysaa blenderkii baad ku shubaysaa. Blenderka markaad makiinadii ku shubtid cabitaanka biyihiisina wuu wataa ogow
biyaha oo dhan ku wada shubi maysid, biyo yar oo kugu qiyaasa. waxaad samaynaysaa khudaarta guriga kuu taala ee fridge-ka kor kugu jirta frozen-ka ah ee maaragtay barafka leh, ama khudaaraha maaragtay sida cambuhu oo kale ama maaragtay strawberry-ga oo kale, waxyaalaha khudaarta guriga kuu taala ee cabitaanada ka samaysatid, it's okay, waad ku shiidan kartaa because waxaad rabtaa inaad biyihii kaligiis iyo dhareerkii aadan dhuunta marinin oo aadan ka wiswisinin. marka khudaartaasaad ku shiidanaysaa, waxaad ka dhiganaysaa maaragtay smoothie yar oo maasha allah baa kugu soo baxaysa. sonkor iyo waxaas iyo I don't think so uma baahnid. maasha allah anigu kolley sidaan ku cabi jiray wax maaragtay sonkorna kuma darin jirin because khudaartan iyo iyagaaba wax natural sonkora iskale. marka intaa isku shiidatid blenderkii baad ku shiidaysaa, wuu kuu shiidmayaa, cabitaan yaroo heer sare ah kaaga soo baxaya. khudaarta marka adiga ayay kugu xiran tahay, khudaaraha aad rabtid oo jeceshahay baad ku darsanaysaa. markuu kuu shiidmo koobka maalin walbana koob baad ka cabisaa. marka waaba intaasba, waxaa weeye 2 xabo oo ukun ah ama 1 miro oo ukun ah iyo galaas caano ah maalintii bariinso oo maalin walba cab, iyo 1 koob oo maaragtay aad smoothie juice cabitaan ka samaysay oo baamiyihii iyo alaabtan idiin soo tilmaamay, saasaad maaragtay isugu dhamaatay hawshii. marka wax yaroo fudud weeye walaalayaal, oo haddana faa'iidadoodu ay aad iyo aad u badan tahay. waxayna u fiican tahay dadka maaragtay raba lafahoodu daciifka yihiin, looyada iyo jilbaha sad u taqaanid, marka iyo dheecaanka uu ka dhammaaday, marka aad bay dheecaankaaga maaragtay iyo kugu soo celinaysaa looyada ka dhammaadeen iyo xanuunka badan ee ka haya. marka maasha allah tabaaraka allah, ha moogaanin, isla ogow marka alaabtaasna ku dadaal. intaasaan maanta walaalayaal kusoo koobayaa. insha allah biidni illah waxaan rajeynayaa inaad maaragtay ka faa'iidi doontaan. wixii maaragtay faa'iido ana hoos iigu soo qora. insha allah haddaad nagu cusubtahay soo dhawow, subscribe buttonka kugu dhufo oo maaragtay iyo gambaleelka si laba mar dhagdhag uga sii si aad ugu xidhnaatid channelkan oo nagala mid noqotid maaragtay dadka ku xidhan ee mar walba ka faa'iida channelkan. haddaad hore noola joogtid waad ku mahadsan tahay loo joogitaankaaga iyo commentigaaga quruxda badan. aad baan idinka mahad celinayaa walaalahayga, mar walbaba channelkiini weeye aad ku xidhan tihiin. dadkii cusubna aad baan usoo dhaweynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.